Magaciisa waa Govinda Ahuja. Wuxuu ku dhashay meel u dhow magaalada Mumbai ee dalkaasi Hindiya sanadkii 1963. Govinda aabihiis Arun Kumar Ahuja wuxuu ahaa jilaa wuxuuna ka soo jeeday Gujarat oo haatan ka tirsan dalka Pakistan, wuxuuna haystay diinta Hinduuga. Hooyadiisna waxaa la oran jiray Naseem, waxayna ahayd Muslim laakiin waxaa diinta ka bedelay oo ka dhigay Hindu aabihiis maadaama dumarka Hindiga ay ragga qaba ka dambeeyaan oo ay wax walba u sameeyaan sida dhaqankoodu yahay. Waxaana ay xilligii dambe qoyskiisa qabsaday dhibaato badan kadib markuu aabihiis xanuunsaday uuna geeriyooday waqtigii uu yaraa Govinda ayaa ugu yaraa qoyskiisa oo ka kooban 6 caruur ah, wuxuuna ka qalin jebiyay kollejka lagu barto dhaqaalaha, waxaana ku adkaatay inuu helo shaqo maadaama ay ku adkeyd luqadda Ingiriisiga oo dalkaasi Hindiya aad ugu muhiim ah, sababtoo ah wuxuu doonayay inuu shaqo ka helo hoteelada talxiiska sida Taj Mahal Hotel, balse aabihiis ayaa u soo jeediyay kahor inta uusan geeriyoonin in Govinda uu jilaa iska noqdo maadaama uu ahaa nin aad u shaaciro badan, isagoo markiiba matalay filimkii Saturday Night Fever, iyadoo markaasina aad ula dhaceen dadkii daawaday ciyaarta uu ku soo bandhigay filimka. Waxaana u xigay filimkii uu abtigiis Anaad u sameeyay oo lagu magacaabi jiray Love 86, kaasoo soo baxay sanadkii 1985 iyadoo kadibna uu saxiixay inuu sameeyo ilaa 40 filim. Govinda waxa uu jilay in ka badan 120 filim oo Hindi ah, waxa uuna soo jiitay indhaha daawadayaasha kadib markii isagoo cusub uu kaga yaabiyay dadka jilitaanka qosolka badan iyo weliba qoobka ciyaarka xifradeysan. Wuxuuna caan ku noqday xilligii 80meeyadii aflaamtiisii komentiga ama majaajilada sida Shola Arun Shabnam. Inkastoo Govinda aflaamtiisa uu badnaa comedy ama majaajilo, sidoo kale wuxuu keen jiray filimaanta jaceylka iyo actionka. Filimaantiisa kuwa ugu caansan waxaa kamid ah Shola Arun Shabnam 1992 ayuu soo baxay, Aaqeen 1993, Raja Babu 1994, Holy Number 1 1995, Hero Number 1 1997, Diwana Mastana 1997, Hasina Manya Jayenge 1999, Anari Number 1 1999, Dodi Number 1 2001. Govinda wuxuu jeclaa inay la matalaan aflaanta atriishooyinka kala ah Divya Bharti, Grishma Kapoor, Juhi Jalwa, Manisha Koirala iyo Raveena Tandon. Govinda ma noqonin weli Best Actor ama jilaaga sanadka, laakiin wuxuu qaaday dhowr bilad ama abaalmarino oo ah Best Comedian ama majaajilistaha ninka ugu qosolka badan. Waxaana lagu naanaysaa Govinda Chichi ama ninkii faraxsanaa, iyadoo dadka ka faaleeya quruxda ragga ay sheegaan inuu Govinda u dhashay af qurxnaan. Govinda ayaa waxa uu guursaday gabar lagu magacaabo Sunita kadib markii ay jeclaatay xilli uu matalayay filimkiisii Muharrat oo soo saare ka ahaa abtigiisa Anad Singh, iyadoo Sunita ay la dhalatay xaaska abtigiisa. Waxa ayna isguursadeen sanadkii 1987 iyagoo isqarsanayay muddo 4 sanadood ah, waxaana lamaanahan u jooga haatan 2 caruur ah, Narmada iyo Yashvada. Govinda ayaa sheegay mar uu ka hadlayay qoyskiisa inuu aad u jecel yahay xaaskiisa maadaama ay tustay jaceyl, isagoo ka badbaaday shil gaari uu ku dhiman gaaray xilli uu duubayay filimkiisii Qudaar sanadkii 1994. Govinda waxa uu matalay markii ugu horeysay Ladar ama Tuug sanadkii 2000, wuxuuna ahaa filimkiisii lagu magacaabayay Shikari, balse sanadihii ka dambeeyay 2000 wuxuu u wareegay dhanka siyaasadda uuna door weyn ka qaatay talada ama maamulka dalkiisa, wuxuuna xubin baarlamaan ama xildhibaan ka ahaa Hindiya muddooyinkii dambe, iyadoo uu haddana ka tegay kursigii sanado ka hor. Xisbiga uu Govinda ka tirsanaa wuxuu xukumayay dalkaasi Hindiya muddooyinkii dambe. Dhanka jilitaanka aflaanta ayuu dhowr jeer ku soo laabtay uuna ka soo tegay siyaasadda, waxaana la xasuustaa filimkii Om Shadi Om ee Shah Rukh Khan inuu wax ka dhigay isagoo ah madax. Ugu dambeyn sanadkii 2008 sheegay inuu isaga tegay siyaasadda uuna ka baxay, wuxuuna sheegay inuu sii wadanayo shaqadiisa Bollywoodka ee aflaamta maadaama uu sheegay inay kala macaan tahay siyaasadda.